السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب تجارة قاهرة إن شاء الله نطرح بلاوي دون كورس كي أن هروش إننا بلاوي دون مقال سمينتا أما واحد يقنا فيلم إديتين أما فيديو إديتين أو تقلبه كورس كان إن شاء الله دليل هذا عن بلاوي دون بيجنر أما ماش أو سيسو إلا واحد جاي دون أبليكيشن هذا توب كاه مسرية رجينا إن شاء الله إنك فايز دوت كورس كان أنك فايز دون تحيا فربنا وزوجتنا دون تاد channel كورس بتاعي دو ماتسن بليز سبسكرايب ده لايك ده شغله مقالك لو ده أصحابته جاشاي إنك فايزتان ده كم أنت أصحابته نروح لنا مقال هذا لايك ده شغله وحي كومنت يا فهم ويسيد أما وحي أجاشاي نوصل كده أيبت أصير كومنت كيف على ده نوصل إن شاء الله ما أنت إن شاء الله نكون عندنا 10 كنا بقول كواد 10 كاس وقسمة بسمة واحد يقال موقال سمين تجودهن generally markii la sameeyo film editing ama wax loo yaqaan muuqaal muxuu yahay maxaa muuqaal sameyn laga wada waxyaabo wax la xiriiro ayaan qaadan doonaa insha Allah maanta 10 koowaad ama ku sameyn doonaa section koowaad duleelada insha Allah section koowaad waxa qaadan ahay taxaqan ku maxaa la yiraahdaa maxaa la loo yaqaano horta video muuqaal maxaa la yiraahdaa muuqaal muxuu yahay muuqaal okay aan qaadan muuqaal waxaa la yiraahdaa photographic images that are played back at speeds of 15 to 30 frames a second and provide the appearance of full motion. waxa muqaasmeent waxa loo yaqaan maxaa la yiraahdaa waa sawirro horta muuqaalda ama ashid waa photographs macna sawirro la isu keenay kuwaas oo lagu daayo speed 15 ilaa 30 ah kaas oo sameeyaa full motion dhaqdhaqaaq dhameystiran. muqaasmeent waxa la yiraahdaa waa sawirro marka farbadan la sugiyo ama sawirro dad farabadan oo si mid ku soo marka speed ku socdaan xawaaraha ku socdaan gaaray la 15 ilaa 20 frame wax loo yaqaan kuwaas oo sameeyaa full motion laakiin sawirka caadiga photograph-ka caadiga ma sameeyaa motion muuqaalka lagu jahay tahay xaalada waa sawirro aruuray ama la soo aruuriyo kuwaas oo speed kooda xawaarada la koriyay appearance kooda uu muuqanay dhaqdhaqaaq dhameystiran muuqaal marka noocaas sawiray okay kan ku xigta socono ku xigta waxay tahay waxa la muuqaal sameyntu maxay tahay waxa la video editing ka maxay tahay video editing wuxuu yahay asaga marka video editing ka wuxuu yahay marka video editing ka waxay tahay waxa la video edit waxa la yiraahdo what is video editing waxa la video edit muuqaal sameyntu maxay tahay muuqaal sameyn waxa la video editing is the process of manipulating and rearranging video shots meesha meelaha waxay tahay rearranging video shots creating ama create a new work video editing hada process kama habka muuqaalka wax looga bedelayo dibban loogu sameeyay ama loogu arrange garanayo video shootska muuqaalada soo duubay si loo abuuro mid cusub anada maxay tahay to si guud ah soo dhaweeyo fahamka asaga video editing wax loo yaqaan muuqaal sameyntu waxay tahay waxa weeye muuqaal sameyntu muuqaalo fara badan in wax laga bedelo ama hal muuqaal wax laga bedelo si loo soo saaro muuqaal fudud تصمر إلى فوضى قصية وحلو يقع عند دول شدة عم واحد بسكوت ك وهي كجرا وحياة معان حيوانات معان كجرا سمع أوكي دول شدة ثمانية هي عقليا بدك يقع وحالة ثمانية دول شدة وكون عانو حلو يقع سكر حلو يقع بر حياة ولا سكوت عليه كاسة حصل شيء معان هذا دول شو كان واسق له مقال اسمه تحلي حيتها هي وبروسيس مقالف رب أنت له سكر كانوا la isku jarjaro wax laga badbadalo wax lagu sameeyo kadibna laga saaray hal muuqaal oo aad u qurux badan kadib weydii la muuqaal sameyntu maxay tahay oo process-ka muuqaalada wax laga badbadalayo muuqaalada dib loo arrange garanayo ana loo saxsixi doono si loo soo saaro muuqaal cusub oo nadiifsan taas waxay tahay xilada muuqaal sameyn kadib weydii muuqaal sameeytuna waa noocaas ama qaabkaas ayaa la wax laga yaqaan muuqaal sameynta okay aan socono marka gooliska ama waxyaabaha laga leeyahay marka ديلو ويدورني horta muuqaal sameyntu maxaa laga baahan yahay dil muuqaalka asmeeyay sabxaa u baanta oo muuqaalku waa soo duubay masiis lagu deeyo sababtu marka waxay tahay waxyaabo gooliska laga leeyahay waa qana fiir ko lambar ko waxay tahay remove unwanted footages ko muuqaal marka la duubayo ama muuqaal marka la soo qabanayo muuqaalkaas waxa ku jira meel fara badan loo baahan tusaale ahaan markaan muuqaalkan duubayno kale ama marka muuqaalka duubayso kale waxaa jirta meel fara badan oo adigoon diyaarsaneyn ka qabanayso qof adiga wax muuqaalka duubay kaas wax galay halkaas wax galay waxyaabaas maxaa la meelaas unwanted footage
footageska ama meelaha aan loo baahnayn in la remove gareyn karo hadaan remove gareyn karin waxaa soo bixi lahaa cayaab fara badan waxaa soo bixi lahayd cayaabo fara badan ayaa soo bixi lahaa marka muuqaal samaynta hadii muuqaal aad samaynaysid goolka ama hadafkan kalena maxay tahay koob waxay tahay in laga saaro unwanted footage-ka ana meelaha aan loo baahnayn muuqaal loo baahnayn labar loo maxay tahay choose the best footage in hadii laga doorto muuqaal dhexdiisa best footageska kuwa qurxoon hay'adaas in la sii doorto waa qodobka labaad ama goolka labaad kalena ka saddexaad muxuu yahay inaan abuur wax loo yaqaan flow muuqaalka inaan qaab abuur nooc asaga flow okay qodobka saddexaad ama goolka saddexaad laga leeyahay waxay tahay muuqaal samaynta maxay tahay ku add effect muuqaalkan aan ku daray effects qurux badan tusaale ahaan fiiri muuqaal muuqaalka duubtay laba muuqaal ay ahayn mid kamid ah waxaa rabtaa inaad muuqaalkan ama inaad ka sheekaysid taariikhda soo dhaafay marka history waxa badan yihiin wax daag ama madow marka hadii aan rabo inaan muuqaalkan daag ku daro ama aan rabo inaan usme effect ma ku dari karaa waa goolka laga leeyahay muuqaal samaynta faa'iido weyn laga rabo waxay tahay in effect lagu dari karo sidoo kale muuqaal samaynta naftirkeeda inaan ku daro graphics waa hadda marka artaan muuqaalkan aad daawanaysid marka uu reesfiri waxyaabaha wax soo gaar muuqaal kale sawir ka dhex muuqdo channel dhexdiisa wax ka muuqdo loogada channelka wax ka muuqato fahamsa taas maxay tahay in lagu dari karo graphic muuqaalka aad samaynayno inaad ku dari karo qodobka saddexaad waxay tahay in lagu sii baahanahay haddaan u baahanahay musics ku dari karaa waa hadda muuqaalkii codka mid saaran aniga aan duubayo sameyn haddaan u baahdo music hoos ka hadlaayo ama music yar noocaas aydan ku dari karaa taasna maxay tahay waxa loo yaqaano gooliska laga leeyahay muuqaal samaynta ayay kamid tahay waa mid ugu muhiimsan waxyaabo ugu muhiimsan maxay tahay fiiri muuqaal samaynta uu dhaxo muhiimsan waxa weeyaan laba shay horta ko in laga saaro waxyaabaha loo baahnayn iyo tan labaad oo ah in lagu soo daro effect ama sawir ama music waxyaabaha ugu muhiimsan kamid tahay muuqaal samaynta laga hadlayo okay sidoo kale maxay tahay qodobka afraad oo nama shanaad alter the style balka ina style-kiisa ka bedeli karno sidoo kale piece or mode-kiisa ka bedeli karno muuqaalku leeyahay sidoo kale muuqaalka inaan siin karno particular angle waxa la dhahaa tusaale ahaan fiiri hadda meeshaan ka hadlayo fiiri tusaale ciwaankan aan ka hadlayo wax loo yaqaan maxaa isheeg video edit samahan haddii aan u baahdo ciwaankan inaan soo dhaweeyo fiiri tusaale ahaan waan soo dhaweysanayaa fiiri hadda marka muuqaalka daawanayso fiiri hadaayaad isku daa maya hadda waxaan soo dhaweeyay angle marka taas waxa la angle tabahay macnaha in particular angle sameyn karo oo macnaha meesha u baahan tusaale ahaan waxaan ka hadlayaa tusaale fiiri in ciwaanka bis xaran ka hadlo waxaan leeyahay inaan soo dhaweeyo ciwaanka bis ama inta u baahanaa inaad dhulkay wax loo yaqaan calaamadu si uu soo dhawaato taas waxay tahay particular angle marka hadii la abiska ama gooliska laga leeyahay muuqaal samaynta ama editing-ka waa noocaas ayada ma filayna fahmi kartid midda ayada baraan socon noocyada kala duwan ee muuqaal samaynta maxay yihiin muuqaal samaynta waxay soo martay noocyo fara badan oo soo isticmaali jiray kuwa la isticmaalo way mid ku hore muxuu yahay film splice waxa la jiray muuqaal samaynta hore ama la isticmaali jiray hadda waa outdate kan wax isticmaal ma jirto nooca lama isticmaalo sidoo kale kan labaad tab lane wax la isticmaalo waa la isticmaali jiray laakiin hadda wax isticmaal ma jirto anaga hadda kan isticmaal doona kullis aan waxay tahay waa mid ka saddexaad digital computer hadda kan waxay tahay waa non linear waa digital computer kana meesha loo shaqeeyo badii software badankood laakiin qaabkan wajiga ay leeyihiin sidoo kale waxaa jirta muuqaalada qaab u dambeeyo soo baxay live edit muuqaalka soo live ku jira Facebook laga bixinayo in la edit gareyn karo muuqaal samayntuno noocyada soo martay laakiin hadda anaga kan popular ka isticmaal maxay tahay number 3 oo ah digital computer wax loo yaqaan kaasaga baraan socon video formats muuqaalka leeyahay format maxay tahay qaab muuqaalada qaab meel la karaha muuqaalka qaab badan soo bixin waxay tahay qaabka ayaga oo ku aan fiiri haddii aan ku dhahaa macallin ama qof kale oo video format kale muxuu yahay macnaha waxa la yiraahdaa videogan markii tusaalaan aan qorto introduction to video ama introduction to waxa loo yaqaan film editing muxuu qaadan doonaa kuwan halaan format waxa jira AVI waxa la soo gaabiyo gaalka doona VLV-ga WMV-ga move-ka MPG4 waxay muuqaalka dawladda muuqaal samaynta ama muuqaalada caadiga formatiskooda sheeg inaad inta dhig kartid mid kasta waxa la soo gaabiyo gaal inuu taala waa kana AVI waxa la soo gaabiyo audio video ala aan interleave okay VLV waxa la soo gaabiyo flash video format WMV muxuu yahay Windows Media Video move muxuu yahay Apple Quick Time Move halo yaqaan MPG4 maxay tahay moving pictures export to 4 waxyaalahaas waxay tahay waxa loo yaqaano muuqaal samaynta formatka ay leeyihiin muuqaal samaynta formatiska ee la dhahay dawladda muuqaalkan formatkiisa
waana muhiim ogaada markaan muuqaal ka dhamayno oo save gareyn rabno waxaa la dhigaa formaadkay u baahan tahay anaa kuu sheegi doono insha allah formaadada si ay u kala fiican yihiin iyo kana qaadan doono insha allah okay marka waxay tahay section u dambeeyay waxaan ka hadlaynaa wax loo yaqaano how to become waxa loo yaqaano professional video editor qof kasta hadii la soo muuqaal si loo sameeyo wuu sameyn karaa laakiin waxaa loo kala duwan yahay sidee qof kasta ama qofka adiga tahayba u noqon kartaa qof professional ah ama videos uu sameeyo qof kasta uu keeni karo ama video qurux u saari kartaa marka talooyin waxaan damo ku siin doonaa insha Allah talooyinkan damo waxay tahay ku siinay koow si aad ismiis u noqoto muuqaal sameeyo fiican number 1 mid ugu muhiimsan dadka qaarna ay ku daalaan watan koow marka hore make your video content in one folder meesha muhiim way salaan fiir muuqaal sameeyta muuqaal marka la sameeyo la sameyn karaa sawirro isku keenay ama muuqaal soo duubay contentiska ama xogta aan muuqaal ka sameynayno hal folder isku keen maxaa u jeednaa desktop folder ka abuuro shay kasta oo u baahan tahay fiir folder abuurnita la muuqaal sameyn dhaxdiis aksi abuurta folderka codadka folderka sawirrada folderka waxyaabahaas marka taas waxay ka fududaynaysaa marka inaad marka muuqaalada sameynaysid aad caajisid waxaadna ku soo baxaysaa marka qof professional ah xogtiisa kala habaysan tahay laakiin hadii sawirna kala desktop muuqaalna kala ismeel kale codna kala ismeel kale waa daalisa muuqaalada sameyn kartid muuqaalada sameyntoodii ma sii wadi kartid marka tan muhiimsan waxay tahay koo xogta muuqaalka aad sameyn rabtid xogtii soo idil hal meel soo keen hal folder gee si xogta kugu fudan number 2 think more marka muuqaal sameynta wax lagu leeyahay maqlayso waxay tahay waa horta maskax qofka u saaran yahay adiga waxa sawiranaysaa qurux waxa maraysa u baaray muuqaalku markuu soo galay hordhac soo gal qurux badan number 2 maxaa u baahnay sawirka ka hadlay muuqaalkaas ku soo xogsado 3 maxaa u baahnay dhaqaalaha ku soo xogsado 5 macna maxay tahay inaad wax badan fikirtaa inta shaqada bilaabin ka hor ha ku dul fikir meesha ku dul fikir taas thinking more sidoo kale marka muuqaalka sameynaysid make the video in stable place meel xasiloon fiir waa tan muhiim ah kamid tahay muhiimsan marka muuqaal sameynaysid meel aan buuq lahayn dadku ugu daalaneen maanta lagu sheekeeyeen oo fikrada mashquulin saddexdan qodob maxay tahay waa saddex qodob oo ka caawin doonto inaad noqotid qof muuqaal sameynta ee u fududahay maxaan ku nirku xogta muuqaalka sameynaysid kuwal folderge marka xigtana marka hore muuqaalkaada abar fikir saddex meesha aad ku sameynaysidna ha noqoto area xasiloon ha noqoto taas maxay tahay sida aad ku sameyn kartaa oo gartid muuqaal sameeye insha Allah aan halkaas waxaan ku joojin doonaa hordhac ku saabsan muuqaal sameynta generally insha Allah next lesson kama ashaqna ma qaadan doono waxaan bilaabi doonaa software ku horeeyay annaga computer ku soo doono insha Allah maanta halkaas haynu joogo please asxaabtada jeceshaad isleedahay ama u baahan yihiin muuqaal sameynta inay ka faa'iideystaan waxaan la qabsadaan hadda inta blow yahay si hadhow marka advanced ka yahay ay nolol dhameystaan hadii laakiin blow ka dhamaado blowga uu ka hormaro dib ay hadhow ku noqdo insha Allah adigana ku xirno channelka casharada markaas soo dhigna practice gare casharada markaas ku celi markaas waxa soo bixi doonta insha Allah inaan noqdo qof ku wanaagsan muuqaal sameynta oo bila tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.